السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة قدرتي شرفتي كرامة نجم مدنو كسر دوادا برشدي دولتها جاسك أفريقيا وحماتا ميسك إنها صاروا ودنك إريتريا. هذا بوحن وجود كري دونا برشدي يكوس أبصم ودنك إريتريا. إريتريا وودن كويا لباريغ أفريقيا خاصة عرفك باريغ أفريقيا أما جاسك أفريقيا وودن وحا وحدود لا يدور سيدا جيبوتي إثيوبيا iyo Suudaan وودن لبط وحا وبديس قد لبط عس. إريتريا waxaa gumaysan jiray gumaystihii Talyaaniga ee reer Yurub waxa uu ku wareegtay dawladda Itoobiya ay ka mid noqotay. Eritrea waxa ay saluuka muujisay midnimadii ay la gashay dawladda Itoobiya sanadii 1980 ayaa la aasaasay ururka xoreynta Eritrea ee ELF. ururka waxa uu dagaal ka qaaday Itoobiya si uu xornimada ula soo noqdo. sanadii 1970 Eritrea ayaa la kulantay abaar iyo burbur badan duruufo adag iyo qaabka hoggaanka howlgala la isku afgaran waayay. kadib ururka ayaa laba qaybood noqday. sanadii 1974 dawladda Itoobiya markii la afgembiyay maamulka cusub ee Itoobiya waxa uu hubiye ciidan ka helay Kuuba iyo dawladda Ruushka. hayse yeeshee ciidamadii Itoobiya waxa ay ka koobnaayeen magaalooyinka waaweyn. sanadii 1980 ilaa 1990 ururkii ELF ayaa guushadii dagaalka way soo kordhaysay. sanadii 1990 ururkii ELF ayaa qabsaday Masawa oo ahayd saldhiggii ciidamada dhulka Itoobiya. sanadii 1991 ururkii ELF ayaa qabsaday magaalo madaxda Eritrea ee Asmara. markii la jebiyay ciidamadii Itoobiya Eritrea joogay waxa la bilaabay kacdoon lagu abaabulayo dalka gudihiisa. ururkii TPLF ayaa qaaday dagaal isdaba joog ah oo qabsaday magaalo madaxda Itoobiya Addis Ababa. markaas ayaa la aasaasay migistii dalka dawladda cusub ee Eritrea. bulshada adduunka soo dhacay ururkii ELF iyaga oo ku haysta ogolaanshaha dawladda cusub Itoobiya ayaa qabatay bishii Abriil sanadkii 1993 waqtigaas oo dalka Eritrea dhammaantood doorteen madaxweynaha Eritrea. sanadii 1993 bishii